السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين السلام يا دمان أصحاب قارية كحران حمسة أوفيشيال ولا عليه قارية ملكس الدنيا دعالة كشوكتان وحن الله هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي بمهد يشكر بلي أنا ونمد قبنا حد يسكسو كان عليي marka walaalahayga qaaliga waxaan rajeynayaa sida caafimaad iyo nabad buu qabo inaad idinkana caafimaad iyo nabad u qabtaan maasha Allah tabaarakallah ilaahay ayaa mahad leh oo anagu nabad qabno oo caafimaad qabno oo meel laga haynin oo soo celiyay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay waa mahad shukri bale walaalahayga qaaliga waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan wacan oo wanaagsan xilli kasta aad joogtaan wacan oo wanaagsan ayaan leeyahay soo dhawaada asxaabtayda qaali inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay u naxariisto intii dhimatay oo shilka ku geeriyootay ehelkoodii iyo qaraabadoodana ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo iyagana ilaahay marti la jecel yahay aakhiraha ka dhigo ilaahay sidaas ku saabsan gabar walaasheena oo ilaahay u naxariistay shalay geeriyootay shil gaari ku geeriyootay iyo dhowr wiil oo la geeriyooday 5 wiil iyo hal gabar ah inay ahaayeen ayaa soo gaartay aad iyo aad baa wallahi ugu xumaaday markasta social media aan soo galo waxaan arkayaa gabadha tacsideedii sawiradeedii marka ilaahay u naxariisto wallahi tax ilaahay baa ugu tala galay qof walba xilligiisa baa la gaarayaa marka qof walba saacadiisa hadii la gaaro cidna ma celin karto ayadana ilaahay u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay qabriga ha u qaboojiyo su'aalaha qabriga ilaahay u fududeeyo kitaabkeedana midigta ilaahay ka siiyo dhamaantood dhalinyaradaas wallahi aad iyo aad ayaa uga murugooday ilaa shalay markaan social media galo ama facebooka ama ha ahaato tiktoka ama youtube-ka dadkii oo dhan ayaa ku mashquulsanaa marka waxaan leeyahay walaasheen ilaahay u naxariisto qabrigeedana ilaahay waasiciyo wiilashana sidoo kale ilaahay u naxariisto dhamaantood walaalahay qaaliga aan soo ducayno intaan dhimatay inta noolna xataa ducay u baahan yihiin aan isku ducayno mar walba in ilaahay ina xiftiyo inta dhimatayna ilaahay u naxariisto isaga u jalla ilaahayna ma fidmay inta adduunka saaranahayna insha Allah walaalahayna qaaliga waxaan leeyahay meel walba aan joogno isku soo ducayno aad iyo aad ayaan mahadsantihiin sida qurux badan ay ugu xirantiin fiidiyaashada u daawataan waxaan leeyahay soo dhawaada hadda hore ila joogteen soo dhawaada aad iyo aad baa mahadsantihiin waa idin mahad celinayaa marka walaalahayga qaaliga waxaan leeyahay inagana ilaahayna xiftiyo meel kasta aad joogtaan ilaahayna xiftiyo asxaabtida qaaliga igu xiran waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan walaalahayga qaaliga sidee tihiin ma fiican tihiin waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan waan islaamayaa kursiga joogtaan isaa sariirta joogtaan ayaan idinku salaamayaa waxaan leeyahay channelkay ku soo dhawaada inaan halkaan iskala socono ayaan rajeynaya marka walaalahayga qaaliga waan islaamayaa dhammaantiin meel kasta aad joogtaan intii xanuunsan ilaahay caafiyo intii caafimaad qabtan ilaahay u siyaadiyo intii meel kale ka dhibaataysan ilaahay dhibaatada ka dulqaado ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan khaasatan ummadda Soomaaliyeed walaalahayga qaaliga igu xiran qofkii ilmihiisa macnaha ku dhibaataysan ilaahay ilmaha u soo hanuuniyo ilaahay ummad badan ilmihiisa ku dhibaataysan baa jira qaar ilmihiisa laga qaatay baa jira marka waxaan leeyahay ilaahay qof kasta oo Soomaali oo muslima meel kasta oo jooga ilaahay xiftiyo ilaahay awlaadaha noo xiftiyo dhammaanteen walaalahayga qaaliga maanta ani arrinka oo tacsida ayaan u soo galay waana ka fadhi waayay tacsidaas wallahi shalay markii tacsida la ii soo sheegay ilaa iyo haddeer markaan sahay social media u galo ama Facebook ama ha ahaato TikTok horta warkiisa haba sheegin maba galin ayaa waxaan ku iri waxaan idiri macnaha mar walbaba aan galo ba waxaan dareemayaa murug iyo mugd qof oo tacsi waxaan ahayn wallahi ma oolin ilaahay u naxariisto isaga jalla halka wiilashii iyo gabadhii ku dhintay ilaahay ehelkoodii iyo asxaabtooda dhammaan qalbiyada ha u qaboojiyo iyagana ilaahay u naxariisto adduunka intay ku lahaayeen ba intaas noqotay marka qof walba saacad ayuu adduunka ku leeyahay waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga samir iyo iimaan ilaahay siiyo ummadda Soomaaliyeed marka walaalahayga qaaliga intaas ayaan xasuusinayay inaan taxsida u soo galay walaalahayga qaaliga intaas ayaan soo duubay galabta fiidiyowgan waxaan sir taxsida la qaybso ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan iyo familiga ka geeriyoodan dhalinyaradaas shalay gaariga shilka ku galay marka waxaan rajeynayaa ilaahay inuu naxariisanayo insha Allah ummadda muslimiina kulli waana dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u duceeyay oo inta TikTok-ga iyo Facebook-ga iyo meel walba YouTube-ka ayaan ku arkay marka walaalahayga qaaliga ilaahay u naxariisto samir iyo iimaan eheladiya asxaabta ilaahay ka siiyo marka intaas aynu ducayno duca kaliya aan awoodna anagu wax kale ma awoodno hadii aan nahay qolada social media-ha marka waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga ilaahay u naxariisto samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo inta ayaan video ugu tala galay oo soo duubay intaas ayuu ku eegaya video-gayga ummadda ila joogta asxaabta igu xiran waxaan leeyahay isla socono insha Allah YouTube-kayga subscribe ii saara gabar walaashiina YouTube-ka subscribe hal loo saaro walaashiina ayaan ahay
waan idin soo dhaweynayaa asxaabtayda qaaliga sharafta badan kuwa igu soo biiray kuwii hore ila joogay aad iyo aad ay u mahadsantihiin kuwa igu soo xirmi doona waxaan rajeynayaa gacmo furan qalbi furan inay kusoo dhawaan doonaan insha allah walaashin idin jecel niyad saafiya kusoo dhawaada ayaan leeyahay intaan video waan in video lamada kulmana waxaan leeyahay sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nooli kurantee